aagooda weyn oo ka tirsan gobolka saaxil ee Somaliland waxaana siyaasigani si qalbi furan deegaankaasi ugu soo dhaweeyay dhalinyaro odayaal waxgarad deegaankaasi ka tirsan xasan diriir soo dhaweyntiisa wax la qabadkiisa garabgalkiisa intaba diyaar baanu nahay waa soo dhaweynaynaa waa ku garabgalaynaa waa nafiya maal midii ay noqotoba nafiya maal midii ay noqotoba diyaar baan aniga iyo wafti badan oo aan hogaaminaya waxaanu ka nimid tuulada Godayar waxaanaanu u hambalyeynay waanu soo dhaweynaynay waftiga uu wato Maxamed Xasan Diriir inoo yimi maanta ee waftiga wata ee Maxamed Xasan Diriir la yiraahdo horta waynu soo dhaweynaynaa waxaanu se Ilaahay ka baryaynaa inaanu sidii kuwii hore waanu la shaqaynaynaa aanu inagu noqonin soo dhaweynaa Maxamed Xasan Diriir garab iyo gaashaan iyo cududba oo la garab taagan ugu dambeyntii siyaasigani waftigani horkacayay Maxamed Diriir ayaa halkaasi ka hadlay waxaanu si weyn ugu mahadnaqay dadka deegaankani salaamaya salaanta islaamka waxaanu mahadnaqayaa Ilaahay oo inoogu deeqay nabad iyo qarannimo taama calankan aad maanta igu soo dhaweyseen waa calankii Somaliland calan la isku soo dhaweeyana astaanta ugu qiimaha badan ayaa igu soo dhaweyseen calanka Somaliland wuxuu igala weyn yahay oo igala qaalisan yahay in la igu soo dhaweeyaa in la igu soo dhaweeyo astaan xisbi u gaara ama urur gaara uu leeyahay waa calankii ay u soo halgameen mujaahidiin iyo halyeeyo Somaliland u dhashay oo aan ka xusi karo mujaahidkii degmadan u dhashay ee mujaahid Maxamed Xaashi Diiriye Lixle waa calankii uu dhiigiisa u huray isaga iyo mujaahidiin kale oo dalkan iyo dadkan qaali ku ahaa calankaasi wuu taagnaan doonaa waan u jiri doonaa inta ay dunidu jirayso degmada Gooda iyo deegaanka Gacan Libaax iyo deegaanka ku hareeraysani door muhiim ah ayay ku lahaayeen halgankii dalkan loo soo galay sidaas si la mid ah waxa ay halganka loogu jiro Somaliland casriga ah ee la doonayo inay dunida ka mid noqoto ay ka gali doonaan door hormoodnimo ah hogaamintu waa go'aan qaadasho iyo dhiiranaan mahmaah caana oo adduunka oo dhan laga yaqaan waxay tahay oraah caana ayaa waxay tiraahdaa haddii aad doonayso inaad dadka wada raali geliso hogaamiyaha noqonina waxaad furataa dukaan ice creamka lagu iibiyo macmacaanka aniga oo aan irbadun idin gelinin intaan idin soo hor istaago idin oran maayo codis iyo xaasha ilaayo aan horumarkiina iyo xaaladaha nololeed idinku gadaaman aan anigoo shakhsiya door ku yeesho oo aan wax ka qabto idin oran maayo codis iyo damiirkayguna taa ma qaadayo maalinta aan idinla shaqeeyo ee aan idin garab galo ee aan horumarkiina ka shaqeeyo ee aan idin tuso anigoo shakhsiya inaan horumarkiina wax ka mida iyo wixii awoodaydu siisayba aan ka qayb qaatay maalintaas buu damiirkaygu ku dhici doonaa inuu idin yiraahdo codisiya Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa